roob iyo dhigay dalka Jabuuti ayaa saameeyey isu socodka iyada oo wararka ka imanaya Jabuuti ay sheegayaan in dowladdu ay gacan ka geysatay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay roobabkan. Faafahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse. magaalada Jabuuti tan iyo maalintii shalay waxaa ka daayay roobab xoog badan oo biyo dhigay jidadka wadooyinka iyo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. dadweynaha reer Jabuuti oo soo maray waqtiyadii aadka u kululaa ee xagaaga bilihii aynu dhawaanta ka soo gudubnay ayaa soo dhaweeyay roobabka. roob leeyahay wallahi roob fiican bashbashay barwaaqo ayaa noo daay wax dhibaato u neeyay ma jirto nadiiftii iyo gidaafadii waxa uu naga meeray wax dhibaato jirto ma jirto iska dhulku fiican yahay laakiin biyo wada buuxa dariiqadii dadkiina basas bay laayihiin basaskii waxay ka wada cabsoonayaan amba ay ka baqayaan inay gaariyaasha la maraan goobahan dariiqyada ee biyuhu ay wada fadhiyaan bal ka war dawlada wallahi waxa biyuhu u buuxaan mululka iyo buuxsamay mululka in goobihii qaadayay biyaha ayaa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo biyuhu ay maraan laakiin wax dhibaato oo kale ma jirto cirkuna si fiican buu noogu daayay wax burburan oo dad yeelana ma jirto ana fiicanahay Soomaali Umar Casuubi way Soomaali nicmad baad maanta daadi roob fiican banu joogu fiican yahay waliba gaadhibadooda taadigiyo in dariiqada waxa wada fadhiyo biyo balka dhulkii waa laga weecanayo askar baa weecinaysa oo dadka ka kala weecinaysa meeshii biyuuna bilama casarka way dhacayaan baday galayaan basaskii ma jiraan oo dadkii dariiqii bay wada lugeynayaan oo laakiin ciidamadii qalabka sida dadkii aan u gurmanaya dadkii ciidankiiba uu gurmanaya wax marka mashaakil ma jirto insha Allah dhulku iska fiicnaan doonaa hase yeeshee roobabka oo daayay saacado badan oo xidhiidha ayaa keenay inay kala xidhanto magaaladu iyadoo biyo fara badan ay fadhiisteen xaafadaha dhexdooda jidadka magaaladuna ay noqdeen daad qulqulaya. dowladda Jabuuti oo ku dhawaaqday xaalad degdega ayaa bilowday inay gurmad la gaadho dadka roobabku ay saameynta ku yeesheen iyadoo gaadiidka ciidamada qalabka sida booliska ciidamada gendarmeriga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo xeebuhu ay dhammaantood u howlgaleen inay daadgureeyaan dadka biyaha roobabku ay ku galeen guryahooda. haddaba dadkaasi ku tabaaloobay roobabka oo ilaa xalay ilaa maanta ciidamadu ay ku daadgureenayaan qaar ka mid ah xarumaha dugsiyada waxbarashada ayaan xalay kula kulmay goobahaasi la dejiyay. Ahmed Abdi Cadur xagan waxaan yimid reerkii hooyaan keenay gebi ma garatay marka dhibaataan hayso qalkii naga buuxsamay waxaan loo qabanaa wali hada maarkaano waxba ma hayno waxaan weydiisanaa marka madaxweynaha soo gargaaro dadka wax u keeno ilaahay du khayraasiye noo yimaadaan oo waxna leegan Hindi Maxamed Cabdi la yiraahdaa hinda xafadad gashaa kaartisaad baan galaa marka halkan baa leeyahay keenay iskoolka halkan baa la keenay iskoolka waran ma aqalkii baa buuxsamay waa soo qaxno aqalka lagu buuxsamay waxaan arkay iminka gaadhigiin duqa magaalada oo ka sii baxaya halkan marka in dadka looma iman waxba looma keenin way waxba looma keenin wali laakiin waa leeyahay soo wada waxba leeyahay sheegay ilaahay baa garan waxba looma sheegin maxaad ku seexanaysaa iminka halkan kuraashiyaad haysataan ayaan ka soo qaadanay ku duraaxad ku jiibsano maxamed yuusuf ducaale la yiraahdaa waxaan ahay reer kaartiseed baan ahay xaafadaha biyaha weyne ay saameeyeen ee daadadku galeen ayaan ka mid ahay saakaana la soo qaaday waxaana la keenay liiseegan leer baana la keenay dugsiga waxbarashana la keenay dee weli waxba ma hayno waxaanu ka codsanaynaa xukuumaddayadii inayna soo garab joogsato oy wax nala qabato oy guryahayagii eegto oy meelna dhigtaan ka codsanaynaa dowladdeedii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa waxaanu ka codsanaynaa inayna soo garab joogsadaan weli hadda ilaa wax naloo qabtay haba yaraatee ma jirto yaani keeno aqaladii inaga soo guro ma militarigana keenay oo na soo guray baabuurta militarigana lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka dee waxoogaa yaroo balala waa la bixiyey oo dadka aan wada gaadhin welise wax weyn oo na soo gaadhay haba yaraatee ma jirto waan iska dhibanahay waxa ka jooga xagga imika qoyskaygii oo dhan baa jooga meesha marka dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gebigiisiba waa biyo soo maaxanaya waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inayna soo garab joogsaday wax na soo gaarsiiso wallaahi wax yar baa la keenay toon iyo furun yar baa la keenay wax dee ummadi ku qanci karta maaha halkan markii layna keenay waxaan ahayn militarigan iyo askartayna la joogtaa wax mas'uul miyaano inay imanayno la hadlo waana loo yimiday meerigii baa yimiday caafimaadka yimiday wasiirka caafimaadka waa yimiday korneyla yimiday waa la yimiday waxbay qiimeynayeen laakiin waa inii maqan yahay la leeyahay wixii deena loogu maqan yahay wali sugaynaa
dhinaca kale wakaalada Djibouti ee saadaasha hawada ayaa mar kale ka soo saartay warbixin xaaladaha saadaasha hawada Djibouti 48 saacadood ee soo socda iyadoo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Warbixintaasi ayaa tilmaamaysa in roobabku ay ka sii dii doonaan magaalada Djibouti labada maalmood ee soo socda. inkastoo roobabku ay ka yaraan doonaan sidii xoogga lahayd ee ay u biyo dhigaan labadii cishe la soo dhaafay, haddana roobabku waxay u sii socon doonaan si teelteela iyagoo aan wadan wax dabayla. magaalada Djibouti ayaa hadda ku jirta xaalad degdega oo lagu guda jiro hawlo gurmad iyo gargaar iskugu jira, iyadoo roobabku tan iyo xalay ay weli sii daayaan inkastoo ay yihiin roobab fudud oo gogoosa. waxaana weli dul taagan magaalada Djibouti daruuro culus iyo cimilo aad u qabow. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti. mahadsanid Ramadan. dhinaca kalena roobabka ka da'aya geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay degmada la yiraahdo Breda oo ku taala cirifka bari ee Puntland. gudoomiyaha degmadaasi Abshir Maxamed Muuse ayaa sheegay in degmadu ay ka go'an tahay dalka intiisa kale maadaama ay roobabku gooyeen jidkii tagayay degmadaasi. khadka telefoonka ayaa waxaa kula xiriiray Xuseen Baraadan. waxaa muddo 4 habeen ka socday roobab baa ka da'ay, waxay geysteen roobabkaasi khasaaro xagga dhinaca wadooyinka. wadada Lafagoray baa ugu badan dhibta ay geysteen, wadadaas oo aad u dhacana, wadadaas oo isku xirta gobolka Galbeedka iyo gobolada kale ee Soomaaliya sida Puntland ee gobolka magaalada caasimada ee magaalada ganacsiga Boosaaso oo dadku ay badeecadaha ka soo qaataan. hadda waxaa ku xayiran gawaari badan, waxaana wadadu ka go'day tuulo la yiraahdo Fagoolo ilaa Mayro. wadadaas dib baa lagu qabaa, waa wado qarax, waa wado ku taal u dhaxaysa Baargaali iyo Sayn. wadadaas muddo mar walba waa laga shaqeeyaa. sanadka waxaa laga sameynayay qayb kamid ah oo 6 kilomitir ah oo shaqadeeda hadda dhamaatay ana dabagaba tahay. wadadaas waxaa horey ugu dhacay gaari fiiga oo u socday degmada Mucayo ee gobolka Gargafuul oo xaabo oo uu ahaa ganacsada Cabdiqani Cali Yuusuf. gaarigaas dad baa ku dhaawacmay, hantidaa ku burburtay. hadda waa yaal meeshii uu yaal oo wadada in yar baa dhinaca laga sameeyey oo looga leexday. dhibaatadaasa hadda ka jira. muddo intee leeg bay hadda waddadu xidhan tahay? wadadu 15 beri ka hor waxa riigaasaa ku dhacayo dad riigaasaa ku dhacayo ilaa 15 beri horeyd waa loo gurmaday oo wadadii riigii dhinaxdaa looga baneeyey meeshii wadada uu ku dhacayo. waxa weeye isla hadda 10 beri iyadoo furan baa roobkaasi qabtay. 4 habeen buuna nahay, haddana waa da'aya caaway. dhibta kale uu geysan doono ilaahay baa garanaya, ama uma garan karo. caawa fiidka aan kula hadlayo wuu hayaa, laakiin dhibaatada maanta loo sheegay ee dadkii maray sahanka ama u jiray iyo dadkii wadada aada ugu dhawaa, dhibtaasi qayradhaantaasi noo soo sheegeen. dhibaatooyinka taas baa ugu weyn dhibta degmada gaadhay, gaar ahaan guud ahaan gobolka. dhibtana gobolku waa nala qabaayo, badeecadaha gobolka ka yimaada meelaha kale kasoo galaa wadadaasi soo maraan. wado kale oo hadda halbowlaayo soo gashaa gobolka ma jiro. waa wadadaasna semberi mar walba way ismaataa. caradeeda caraludiga aada cara dicsana oo roobabku uma adkeysanto. buuro dhaadheerna waa ku taalo qarkaa kusoo rogmada oo wadada dhibaateeya. sidaan ka warqabno degmada Breda waxay ku taallaa cirifka bari ee Soomaaliya, gaar ahaan halka ugu dambeysa dhulka iyo badda iska soo galaan. marka degmadu haatan ma ka go'an tahay dalka intiisa kale? degmadu dalka intiisa kale way ka go'an tahay. guud ahaan gobolkaaba ka go'an. gobolka 3 degmo ka kooban yahay: degmada Breda, Caluula iyo Mucayo. gobolka oo dhan baa wuxuu ka go-an yahay gobolka dalka intiisa kale oo aan waxa weeye gobolkana meel kale waxooga yimaadaan dibadda raashin loo soo gado, niman raashin kama yimaado, badeecada kama soo galaan. meesha keliya baddu hadda waa darbado xilliga kan oo dabaylaha jira oo xilligii baa lagu jiraa wadiinaha ama xayska loo yaqaano baddu ay kacsan tahay. baddu waxa weeye wadada keliya ee hadda dadka u furan waxa weeye waa wadadaasina labada cirifkaas laga soo galo koonfur bari waxa weeye bay aada uga go-an tahay oo waxa weeye wadadaas aad bay u dhibaateysan tahay. dhibkaasaa ka jira. awood iyo tabar lagu furto iyo qalab iyo dad aada u fara badan. wadada ilaa waxay caawa aniga ii sheegayaa 3 bilood 2 bilood
in dad ilaa 200 oo qoys 200 oo qof ay wadadaa furi karaan si loo sheego dadkii xogaalka aanu ku helay saasaa wadadaas ay u dhibaataysan tahay